kulanti wacan u wanaagsan daawadayaal dalkeenba meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan qodobada wararka Garmaal TV kuwooda ugu waaweyn waxaa ka mid ah Zelensky oo sheegay in Putin uu galay dambiye dagaal. Faahfaahin arrintaasi ku saabsan ayaan idiin soo gudbin doonaa daawadayaal. Sidoo kale qodobada warka ku jira waxaa ka mid ah duulaanka Ruushka 3 qalad oo uu sameeyay madaxweynaha dalka Ukraine. haddaba maxay yihiin qaladaadkaasi warka ayaan idinkugu soo baahin doonaa. Sidoo kale qodobada warka ku jira waxaa qayb ka ah Ruushka iyo Mareykanka wadankee hubka ugu badan laga iibsadaa. waa warbixin warkaan idinkugu hayno. sidoo kale daawadayaal warka waxaad ku daawan doontaan Ruushka uu cunaqabateen ku soo rogay dalal xayiraad saaray. qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan wararka Garmaal TV ee ku soo dhawaada iyagoo faahfaahsan. aynu ku bilownay Zelensky ayaa sheegay in Putin uu galay dambiye dagaal. madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa weerarka lagu qaaday isbitaalka caruurta dumarkana ay ku umulaan ku tilmaamay dambi dagaal. waxaa laga yaabaa inaysan xaaladdu sidaasi u muuqan, laakiin xitaa dagaalku wuxuu leeyahay xeerar sida guddiga caalamiga ee Laqeyrta Cas uu dhigayo. goobaha ay dagaaladu ay ka dhacaan waxaa laga dhaqangeliyaa heshiiska Geneva, shuruucda iyo weliba heshiisyada kale ee caalamiga ah. heshiisyada iyo sharciyada dagaalku waxa ay dhigayaan in aan si ula kac ahi loo duqeyn karin goobaha ay dadka rayidka ku nool yihiin. sidoo kale heshiisyadaasi waxaa lagu mamnuucay hubka qaarkii inaan dagaaladaasi loo isticmaali karin maadaama ay khasaare ba'an ay ka dhalan karto sida hubka kiimikada iyo weliba hubab kaleeto sida weyn wax u gumaada. dadka dhaawac ahna in la daryeelo dadkaasi oo ay ka mid yihiin askarta dagaalka qaybta ka ahayd iyo waxyaabaha kale ee dagaalka lagu qabto. sidoo kale shuruudaha kale ee goobaha dagaalka la xiriira ayaa mamnuucaya dilka, kufsiga, jirdilka, xasuuqa iyo weliba koox si gaar ah loo beegsado. arrimahaasi oo dhan heshiiska Geneva waxa uu aqoonsan yahay inay yihiin gaboodfallo bini'aadanimada loo geystay. Ukraine waxa ay sheegtay duqeynta ay diyaaradaha dagaalka Ruushka ay u geysteen isbitaalka caruurta dumarkana ay ku umulaan ee ku yaala magaalada Mariupol in uu dambi dagaal uu Ruushka geystay. duqeyntaasina waxaa ku geeriyootay 3 qofood oo ay caruur ay ku jiraan, halka ay ku dhaawacmeen 17 qofood oo kale oo isugu jira bukaano iyo weliba shaqaalaha isbitaalka. warbixino kale ayaa sheegaya in ciidamada Ruushka ay si ula kac ah u bartilmaameysadaan dadka rayidka ah ee ka qaxaya dagaalka Ukraine. waxaa jira cadeemo isa soo taraya oo muujinaya in bambooyinka loo yaqaano clusterka rasaas iyo weliba bambaanooyin ay ku garaaceen ayaga dadka rayidka ah ay ka degan yihiin magaalada lagu magacaabo Kharkiv. Ruushka iyo Ukraine midkoodna ma saxiixin heshiiska caalamiga ah ee lagu mamnuucay isticmaalka hubkaasi, balse dhacdooyinkan ayaa weli loo qaadan karaa dambiye dagaal. wasaaradda difaaca UK waxa ay sheegtay in Ruushka uu isticmaalay walxaha qarxa ee loo yaqaano thermobaric kaasi oo abuuraya faaruq weyn iyada oo markaasi uu kaashanayo oksijiinta. walxahan qarxa ee wax gumaada isticmaalkooda lama mamnuucin, laakiin si ula kac ah in loo isticmaalo dadka rayidka ah ayaa hubaal ah in ay jebin doonaan shuruucda dagaalka. khubaro dagaal waxa ay ku doodayaan in duulaanka Ukraine uu Ruushka ku qaaday laftiisa uu yahay dambi hoos imaanaya dagaal gardarro ahi. dhanka kalena duulaanka Ruushka ee uu ku qaaday dalka Ukraine 3 qalad ayaa la soo warinaya inuu sameeyay madaxweynaha wadanka Ukraine. duulaanka uu madaxweyne Volodymyr Putin ku qaaday Ukraine ayaa galay toddobaadkii labaad xilli kolonyo militariga Ruushka ay masaafo kooban ay u jiraan caasimadda Kiev. madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa u muuqda mid ilaa iyo hadda ay ciidamadiisa iska caabin ay kala hortageen ciidanka soo duulay, balse su-aashu waxa ay tahay ilaa intee ay sii wadi karaan iska caabintaasi. madaxweynaha Ukraine ayaa filayay in gaashaanbuurta NATO ay si weyn ugu hiilin doonto isla markaana ay ka difaaci doonto duulaanka Ruushka. inkastoo dalalka NATO ay taageero ay u muujiyeen Ukraine, haddana ma gaarsiisno heerka laga filayay. Zelensky sanadkii 2021 wuxuu sheegay inuu rumaysan yahay in Mareykanka oo hormuud u ah NATO uu ogolaan doono in Ukraine ay ka mid noqoto gaashaanbuurtaasi. madaxweyne Biden ayaa xaqiijiyay in Ukraine uusan meel cidla ahi uga dhaqaaqi doonin, ayuu yiri mar uu ka hadlayay kalsoonida uu ku qabo Mareykanka. waxaanu intaas raaciyay inuu dareensan yahay in madaxweyne Biden uu si gaar ah u daneynayo in Ukraine ay ka mid noqoto gaashaanbuurta NATO.
Markii uu dagaalka bilowday, Zelensky ayaa ka codsaday gaashaanbuurta NATO in ay u xirto hawada dalkiisa si Ruushka uu awoodi waayo duqeymaha cirka ee ugu awoodda sheegtay Ukraine. Ta lagama yeelin. Sidoo kalena waxaa ilaa hadda ay NATO ay ku heshiin la'dahay marka la fiiriyo in diyaarada dagaal lagu taageero ciidamada Ukraine. Ruushka ayaa ku hanjabay in haddii la xiro hawada Ukraine amaba lagu taageero diyaarada dagaal, ay taa ka dhigan tahay in cidda sidaasi sameysay ay si toos ahi ugu biirtay dagaalka. Dhanka kalena, Ruushka iyo Mareykanka ayaa warbixin laga diyaariyey waxaa la ogaaday wadanka hubka ugu badan laga iibsado. Dagaalka Ruushka iyo Ukraine u dhexeeya waxaa ka dhashay cabsi xoogan. Ruushka wuxuu ka cabsanayaa haddii ay Ukraine ay ku biirto gaashaanbuurta NATO inay suurtagal noqon karto in uu qarxo dagaalka saddexaad ee adduunka. Si la mid ah, Ukraine waxay ka cabsi qabtaa Ruushka. Cabsidii ay qabtay Ukraine iyo weliba rabitaankiisii ahaa inay ku biirto NATO waxay markiiba isu beddeshay dhab. Cabsida kale ee dhalatay marka uu dagaalka Ukraine bilowday kadib waxa ay tahay cabsi ah in uu qarxo dagaalka saddexaad ee adduunka. Inkastoo aysan jirin sabab macquul ah oo cabsida noocaasi ay keeni karta, haddana dalal kala duwan ayaa sidoo kale go'aansaday inay kordhiyaan miisaaniyadda ay difaaca ay geliyaan si ay cabsidaasi ugu jawaabaan. Tusaale ahaan, wadamada miisaaniyadooda dhanka militariga aad u kordhiyey waxaa ka mid ah Jarmalka iyo Shiinaha. Wadamada Mareykanka, Ruushka, Faransiiska, Jarmalka iyo Shiinaha waxaa gacantooda ku jira 75% hubka dunida yaala. Mareykanka ayaa wadamada hubka iibgeeya ugu horeeya, halka Ruushka uu kaalinta labaad uu ku jiro, inkasta oo Ruushka doonayo inuu la wareego kaalinta hogaamineed. Taageerada Mareykanka ay u muujisay Ukraine, khubaro badan waxa ay dagaalka Ukraine ay ku tilmaameen mid u dhexeeya Mareykanka iyo Ruushka. Waqti xaadirkan, Mareykanka iyo wadamada badan oo kuwa reer galbeedka ahi Ukraine waxa ay ka caawiyeen dhinaca hubka, iyaga oo markaasi si gaar ahna u difaacaya madaxweynaha Ukraine. Sidoo kale waxaa soo baxaya eedeymo Washington loo soo jeedinayo oo ku aadan inay dooneyso xasilooni darrada jirta inay uga faa'iideysato suuq-geynta hubka. Dhanka kalena, Ruushka ayaa cunaqabateyn waxa uu ku soo rogay dalal xayiraad saaray. Ruushka oo cunaqabateyn ka dhalatay duulaanka uu ku qaaday Ukraine ay ku soo rogeen dalal dhowr ah ayaa qaaday tallaabo uu markooda ku beegsanayo wadamada xayiraadda saaray hantida Moscow. Xukuumadda Moscow ayaa 48 wadan ku tilmaamtay kuwa galay falal ka dhan ah saaxiibtinimada fog ee kala dhexeysa Ruushka wixii ka dambeeyay markii ay xogeystay xiisadda Ukraine oo 24 bishii aanu soo dhaafnay ku duushay wadankaasi Ukraine. Dowladda Ruushka ayaa dalalkaasi ka soo horjeeda ka mamnuucday qalabka isgaarsiinta, caafimaadka, gaadiidka, beeraha iyo weliba korontada ee laga dhoofiyo dalkeeda si markooda ay u dhadhamiyaan culayska la saaray. Xayiraaddu waxa ay socon doontaa ilaa iyo dhammaadka 2022 oo waa la sii kordhin karaa haddii maslaxadeeda ay ka dhex aragto xukuumadda Ruushka, sida ay sheegeen mas'uuliyiin kala duwan. Xukuumadda Moscow waxa ay meel marisay xeer lagu fasiray tallaabada koowaad ee lagu qarameynayo hantida shirkadaha shisheeye ee yaala dalka Ruushka. Haddii arrintaasi ay dhaqan gashana, waxa ay sii cakiri doontaa xiriirka Ruushka iyo dalalka isxulafaysanaya. Mareykanka, Ingiriiska iyo dalalka kale ee ku daba safan ayaa joojiyey saliidda, shidaalka iyo weliba agabka kale oo lagu sameeyo Ruushka oo loo iibgeyn jiray sababo ka dhalatay carada ay ka qaadeen duulaanka Ruushka uu ku qaaday dalka Ukraine. Guud ahaan daawadayaal, waxaa intaasi kusoo gabagabeynaya wararkii aad kala socoteen Garmaal TV. Tan iyo kulanti dambena waxaa idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo. 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 Nabadgelyo.